buntland waxaa hogaamin doona macalinka lagu magacaabo ibraahim cabdi cali halka caawiyihiisu uu yahay jibriil cusmaan wardheere oo markaa caawiyaha tababaraha ciyaartan waxaa qabanaya daawadayaal garsooraha heerka caalami ee dalkeena soomaaliya garsoore cumar cabdiqaadir cartan koonfur galbeed sawir taariikhiyo wada jir ayay gelayaan iyadoo markaasi calankooda wada wataan dhammaan xidigaha dowlad goboleedka koonfur galbeed puntland ayaa iyana geli doona markaasi dhankooda sawir wada jira waxaa fadhiyo golaayo guuleed oo labadii sano ugu dambaysay tartankan puntland shabaquu ilaalinayey waayahay seeriga ayaan markan sugi doonaa waa la baastay markan xulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa baastay maad barre ayaa markan la ciyaaraya saaxiibkii afaarax qays oo asal ahaana ciyaaryahan raadsan markan way ciyaareen master jufa waa kan jufa ugu dambayntii qaybta sare ayay ka martay laacibka lagu magacaabo jufa oo si wacan ula ciyaaray guray jufa ayaan ugu dambayn darbe cusjiyey وديسيا لكن ما لا عياريو صاحبتي كله دنك ورر كله عياري سيدي يعقوب وكله يعقوب دمس اد ونكسيه مركن جوفا يا جوفا واكن ترو باس حيران واو اسك قصاريه فرصداسي مستر حيران واو اسك قصارينيا فرصداسي لاعب كلمبرka 19aad ee xulka dowlad goboleedka Puntland جوفا يا سيد بعيس وناكسن جوفا يا كفاية تروباس جوفا يا كحرة كبد مركز هذا قروح بدن حيران فكيرة يا كقبتي حيران فكيرة يا كقبتي وقدام بنتي جو جوس كبد كسعة أيو جمي حيران موسن كفاية سن كبد داسي أيو سميه أو صدق حاجة قصاري عياري الحيران ويا ماد خيبت سرايا كمرتكم فرق البيت انجينيركا وكان مركل يعقوب واو قديه فرصة على بولان لنا يد شاطة بولان ولا قديه هنا ولي واكن جوفا ولا سكون يشوت كجوفا ولي كونفور قلبه ولا قاتي ويرر مركن فرصة عليسا وكان يعقوب مال وعنا يودغي فرصة عليسا كاريك عياريان جامع لا والله يساري كوبداسي سواء أو قروح بدن قولاي قوليد أي أوساري كوبداسي وحايد درب الحوق بدن أولا عزجيي وحايد كوبد يدو عن دقنين شبقة مركز اللغو سوليحيي oo koonfur galbeed ay soo sameeyeen laacibka markaas lambarka 22aad ayaa si wacan uga soo shaqeeyay Puntland counter attack ay sameeyaan markan waa kanalis agram isaga ay markan kabtanka xulka dowlad goboleedka Puntland waa soo shaqo galiyay waa kan markan xeeraan waa kan waa soo dhigtay xeeraan fursad fiican Puntland gool Puntland waa dhalinaysa goolka ugu horeeya ciyaarta laacibka lambarka 7aad laacibka cajiibka madaxa booday laacibka madaxa hojiyay cabdiqani kaariga ayaa dhalinaya goolka koowaad ee xulka Puntland gool koonfur galbeed 0 qaybta hore ciyaarta 39 daqiiqo لاعبك مركز لمبركة 7aad ee xulka koonfur waa Puntland ninka lagu magacaabo cabdiqani axmed cabdi kaarig ayaa dhalinaya madax markaasi ka yimid لاعبka lagu magacaabo xeeraan kadib markii si qurux badan kubadii uu ceshtay ugu dambeyntina madax fiican uu soo saaray xidiga lagu magacaabo kaarig oo lambarka 7aad wata waa xidiga lagu magacaabo cabdiqani axmed cabdi ayaa dhalinaya goolkaasi cabdiqani axmed cabdi ayaa dhalinaya waxa uu cross ka yimid kaarig ugu dambeyntina waa uu booday madax ayuu cusjiyay goolayaha ayaa ka maqnaa bareelka Puntland gool koonfur galbeed 0 Puntland taageerayaasheedu waa ay kaceen iyagoo markaasi wata caagado oo ay garaacayaan una sacabtumayaan kuna dhiirigelinayaan wiilashii xidigaha xulka dowlad goboleedka Puntland koonfur galbeed ayaa laad xoro tuuranaysa waa ay soo tuureen koonfur galbeed halis ugu dambeyntii wili goolayo guuleed ayaa gacanta ku dhigay wayahay markan diida guri ayuu la ciyaaray guri ayaa haysta markan guri waa kan cross ayuu sameeynaya yacquub gool ayaa ka soo saaray koonfur galbeed mar kale waa laga qaatay jufa ayaa markan ugu dambeyntii ciyaartana waa ay soo idlaatay saaxiibayaal qaybta hore ciyaarta ayaa soo idlaatay Puntland gool koonfur galbeed 0 qaybta hore ciyaarta
عمر آذن علي أيا أتاجن عمر آذن علي حدقا كونفور قلبت مدح يسوى وذا دونتن عمر واكن كروس أي كفاية السرعيات تولي كونفور قلبت درونك أيها كعي سواحان يسعد عالم أيو يسخب سنو درونك الجنوبي بيسو استاديوم جماهير كونفور قلبت من القرعية وذكعين ويا صاحب ريال كونفور قلبت أيها كفاية ستكبر مكاسل الصوتوري مستر بوليت مركم بودلان واتن حيران فرصة في عن ولكن عبد الغني من نقول مركله ولي واسك السارين كونفور قلبت يا سوى عن السجل الدفاع ذي ولي واكن عيالته يدعوك كونفور قلبت واسك الدفاعيا لما كنت دواضا يا مركن حيران ايا عنو فرصة كلو عجيبة او جول لو فلنكري حيران waxaa uu celin fursad kale cajiiba oo gool loo filan karay oo isagii goolayaa oo kaliya oo la tagay goolayaa koonfur galbeed fikirey Juve ayaa ka soo shaqeeyay Trubas ayaa la siiyay Yaqoob ayaa raaciyay ugu dambeyntii xeeraan waa u galay laakiin goolayaha ayaa lugta markaa kaga saaray waxay u baaneed wax yar inuu sar u qaado halka marka Cabdiqani Buntland ayaa weerar waa kan xeeraan waa kan waxa hordhiga Cabdiqani markan ugu dambeyntii Cabdiqani waxa ka badbaadiyay kubadaasi lambarka 16aad Ibrahim ayaa ka badbaadiyay iyadoo qowda ay gaabtay goolayaha KGS ayaa koorna lagu haystaa xeeraan ayaa soo tuuraya waa uu soo tuuray xeeraan oo goolayaha iska saaray ee koonfur galbeed marka la gacantood dhanka KGS ayaa loo wadi doonaa BTL ayaana soo tuuran doonta tani waa cajiib lugta bidix ku ciyaara waa mid gambiskiisu aad u badan yahay marka la waarkan koonfur galbeed goolayo guuleed garsooraha ciyaarta Cumar Cabdiqaadir Cartan ayaa laga sugayay in seerigu yeeriyo 40 daqiiqo lagu daro waa ay baxday ciyaartuna waa ay dhamaatay saaxiibayaal seerigina waa uu ka dhawaajiyay garsoore Cumar Cabdiqaadir Cartan koonfur galbeed gool Buntland gool